maxaa sababay in dadkii loogu talagalay gargaarkii aanay la siinaynin oo dadka magaalada Baydhabo xilliyadii habeenkii ah si dhuumaalaysi ah loogu qaybinayo runtii haddii maanta lagu aamino sharaf iyo waxaad xambaarsan tahay karaamo balse ha iskaraamo beelinin sawirkan aad u jeedaan waa hooyooyin Soomaaliyeed oo la socda caruurtoodii oo cidna aan u maqnayn waxayna saamaysay abaartii dalka ka dhacday waxayna ka soo carareen deegaano ka tirsan gobolka Boqol inkastoo haatan ay ku nool yihiin kaam ku yaal magaalada Baydhabo marar badan ayay sheegeen inay kaamam agtoodii ah hay'ado gargaar ay ka bixinayeen balse iyaguna aan la eegin waxayna ku sababeynayaan qaabka hay'adahaasi ay wax ka bixinayaan ay tahay qaab qabiil unugu hooti ana dhibahana guuri dhibkaneenka kalun hadda biyo horta kan dambeetan guri la meel biyo ingaalna bariyata male ogda biyo horta dhibshaynahay kan la may hungurinahay kan saday golgol ka jiifano manateedan dhamaantii kartoon yoonay tawala ka jiifaday anta ta qurboodenahay ما كره ببعثنا باهي يوني توي رفعت لي أنت لكويني ما ولا نرجع أنت كي لكوي إلا تلا سين كوي ولا سين كأوي ورق دنجرة ما مجر ما أتصدق أنت لا تندر بعد كل والكرسنا والكيفنا سير حتى مقابلنا والأنهاي سنة ماله ma Allah subhanahu wa ta'ala ayaanay ka baqaynin dadkaasi oo sidoo kale aakhiro maxsuusana miya ugu dambeyn waa in ay hay'adaha dadka ka mas'uulka ah la xisaabtamaan dadka iyagu ku aaminay oo u dhiibay gargaarka isla markaasina dhahay dadkaas